maantay waa maalintii labaad ee ah bilowga mashruuca anigu magac darnay geediga cagaaran kaasoo lagu soo saari doono calafka xoolaha iyo sidoo kale nafaqada xoolaha loo adeegsan doono cayilintooda iyo waxyaabaha la xiriira runtii isbedel degdega oo waqti iyo juhdiba la gelay ayaa muuqanaya oo adiga isbuuc laba isbuuc ka hor halkan waxay ahayd meel kayma ah oo haba yaraatee wax tacaba aysan ka jirin maantana waad aragtaan oo waxa ka soconaya dhan walba inay yihiin hawl aad u culus وقت دولنا إن شاء الله تعالى ماشانو عقارن أو هول علوس لقى قبتي أياد كسو عادي دونتان إن شاء الله. maanta waxaan joognaa marxaladii labaad ee abuurista calafka xoolaha oo aan ku abuureynay dhul ka badan 20 hektar oo dhul ah kaas oo aan ugu magac darnay geediga cagaaran maanta injineerada shaqaalaha waxay sameynayaan inay habeeyaan drip irrigation ama waxa loo magac daray waraabka dhibicda kaas oo u fududeynayo in aan isticmaalno biyo yar anagoo wax soo saar badan sameynayna maanta waan nool soobad shaqa nool si hore dada ku shaqaysahay baasadooduna ku arkoyna nool loo tuuray waa iska baayeen maanta hadii aan shaqo hel alxamdulillah ilaahay ma hadis waay ujeedada aan u bilownay mashruuca geediga cagaaran oo hindisihiisu lahaa gudoomiyaheena Cabdiraxmaan Cali Mare waxa waaye horta dadku inay yeeshaan awood ay wax ku soo saartaan xilliyada abaaraha hadda xilligan lagu jiro xilli abaar waaye deerta dal soo dhaafo waa la waayay sidoo kale biyo la'aan badan waa jirta xoolaheena baaba'ayaan marka geediga cagaaran wuxuu ka jawaabayaa in dadku ay xoolaha dhaqdaan waliba ayagoo helaya calafkaasna ay ku beeranayaan biyaha ceelka ayadoo aan roobka la isku haleynin ama la sugeyn waliba biyaha roob ceelasha kaliya maahan waxa la isticmaalaa teknoolojiyada drip irrigation-ka dan qofku markuu wuxuu awood u leeyahay biyihii oo ceelka ku jira inuu isticmaalo maxaan ku radaa calafkiina uu soo saarto xoolihiisuna awood u yeeshaan in ayada oo ay abaar jirto in xooluhu ay heli karaan calafkii taa marka waxay siinaysaa fursad ah qofkan si kastuu uu abaar u jiraan haddana inuu adkaysi yeesho oo bulshooyinka kala duwan ee gobolada kala duwan ay awood u yeelan karaan in sanad kasto ay dadku aysan abaar u baabi'in marka qorshaheena waxa waaye in guud ahaan dalka aan gaarsiino in dadku ay awood iyo adkaysi u yeelan karaan abaaraha xoolahooda calaf u heli karaan calaf soo saaran karaan dhibaatooyinka ka dhalan karto isticmaalka galleyda iyo masagada waxa kamid ah in neefka oo caloosha ka qabto hadii si toos ah loo siiyo taas bedelkeeda waxa ka fiican in aad bal ama aad siisid cawsas la keydiyay ama la qalajiyay mashruucan ujeedada laga leeyahay ma ahan kaliya in beeraleydu u caawiyo hadii beeraleyda iyo xoololeyda ay wax la soo baxaan xilliyada abaaraha wuxuu contribute gareynaa economiga dhaqaalaha wuxuu contribute gareynaa food security in wadanka laga helo cuntadu ay sugnaan cunto oo toos ay yeelato kaliya aanan dadka wax soo saarka beeraha ku jira aysan cunto helin laakiin xoolaheen lafteedu ay cunto iyo calaf heli karaan calaf xoolaha kaliya xoolaha lama siiyo mar fiira laga dhigaa asagaa la bedelaa mar waa la kaysadaa marka xoolihiyaa siisanaysa mar asagiyaa fiid ka dhigaysa wax kala ku daraysa mar waa kaysanaysaa marka waxaa soo baxaayo wadan food secure cuntadiisa ay ku filan tahay abaar aanan problem iyo walwal badan aysan dadku ka qabaynin xoolihii ay cunto haystaan xoolihii calaf haystaan bulshadii kale beeraleyda aysan markii webiga uu qalalo ama roobka la waayo ay dhahaynin hadda wax ma samaysanayno ay heli karaan badiilkii biyaha tusaale ceelasha heli karaan anagana dadkuna ay ka support gareeyaan ama anagana aan ka support gareyno dripkii oo siino farsamadii aan siino tababaradii aan siino
dan marka waxaa la helaa bulsho isku dhufan dalkiyo guud ahaan adkaysi u leh isbeddelka cimilada cuntadeeniyo xilli kasta diyaar noo ah. maanta waxaan joognaa halkii ay ka bilaabatay riyadii ahayd geediga cagaaran. dhul qalalna ayaa u bedelnay meel cagaaran oo wax soo saar leh anagoo isticmaalayno awoodda gudaha. maanta halka aan joogno waa natiijo cad oo la goosan karo oo ku tusinayso in looga maarmaayo wax soo saarka laga soo qaadanayo dalka dibadiisa. tani ma aha dhammaad, waa nolol cusub oo kobcaysa, horumar joogto ah iyo mustaqbal cagaaran.